Bismillah. Ishmael Warsame Digital Media. Wadin Salame, Damanti. Saaka waxaan jecel lahay inaan yaraha ka hadalno isxukunka Puntland. Waxaa jira dood muddo dheer soo socotay iyo canaan ku saabsan maamulka Puntland. waa mare waxay ka kor weyday nidaamkii qabaliga ahaa ayaa la yiraahdaa waana muuqataa oo waxay u gudbo weyday yani hanaanka xisbiyada badan. waa mare niman MS la yiraahdo ama Maxamed Saleemaan ayaa meesha qabsado oo isku bedbedela madaxnimadeeda. waa mar kale ee dadkii kale ee wax ka dhisay Puntland ayaa waxa laga dhigay go'doon siyaasadeed iyo kuwa aan muhiim ahayn. wadoodaha socda oo muddo dheer soo socda. danka aan ahayn MS waxay yiraahdaan waa niman aan cid kale wuxuu ogolayn oo iyagu raba inay isku bedbedelaan meesha ku meeraystaan. sidaana aan garanayn in Puntland khatar galayso oo aakhirtahan meesha lagu kala tegay haddaan hanaanka ay ku socoto iyo isxukunka wax laga bedelay. dhanka MS waxay yiraahdaan dadka arrimaha ku doodaya dhowr waxyaalood ma taxgeliyaan. waa mare tirada MS ma taxgeliyaan oo haddii la aado hal qof iyo hal cod garantiin ma aha in aan dad aan ahayn MS ay soo baxayaan ama madaxnimada ku guulaysanayaan. waa mare waa niman aan aqoon ama rag aan aqoon kuwa aan MS ka ahayn meesha laga yimi iyo halgankii dheeraay oo lasoo maray. sheekadu wax kastaba iska ahaatee waxaad moodaa in Puntland wax weyn ka khaldan yihiin xagga xukunka. haddaan la toosinna meel fog laga dooni doono. dhanka MS waxaa jira dad waaweyn oo siyaasiyiin oo xilal waaweyn soo qabtay oo waagii Puntland la dhisayay halkaan Garowe shirar ku qabanayay in shirka la burburiyo haddana sheegta inay yihiin asaasayaasha Puntland. waxaa jira dad MS ah oo xilal waaweyn soo qabtay oo u hanqal taagaya magaalada aan lagu noolaan karin ee noqotay Bambeyga Soomaaliya Muqdisho. India magaalooyin badan baa lagu noolaan karin qof dan ku qasabtay maahan. Muqdisho saasay noqotay. waa mare waxaa jira MS oo aan garan conceptiga federalismka iyo waxa la soo maray iyo Soomaali meeshii ka timi iyo wixii xamar ka dhacay iyo qaxii dhacay iyo xasuuqii dhacay iyo kala cararkii dhacay aan dareensanayn. dadka saasa waa niman aan Muqdisho u hanqal taagaya oo xataa guri hadday ku leeyihiin Garowe mise Boosaaso mise maaragtay meelaha kale la mid ah ay rabaan inay iibiyaan oo Muqdisho wali maaragtay mar kale ka dhistaan. waa niman aan Puntland waxba ugu fadhiyin oo xataa nidaamkan federalismka u arka inuu ceeb ku yahay Soomaaliya iyo midnimadeeda iyo waxa la mid ah. sheekada Puntland oo halkaa maraysa waad u jeedaan badbaado kale inaysan jirin in loo gudbo hanaanka xisbiyada badnaa maahan. hanaanka xisbiyada badan waxay noqonaysaa xisbigu dee madax buu soo saaraya madaxdaasuna khasab maaha inay MS noqdaan
waxaa laga yaabaa cid kasta inay madaxnimada ku guulaysto xisbiga dabadeedna saa uu ku noqdo qofku maaragtay madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen ama ra-iisul baarlamaan wax kasta hal qof iyo hal cod markii la aado xaaladdu way isbedelaysaa waxay isku bedelaysaa maaha in maaragtay ay tiro aan la ogeyn soo baxayso waxaa soo baxaysa hanaan dadka madaxda ah ay ku soo baxaan hanaanka xisbiga loo codeeyo xisbiga meeshii qof loo codayn lahaa intaasaan rabay inaan maanta idinla wadaago aad iyo aad baa u mahadsantihiin nabadee